runtii maanta waxaa noo farxada in si wanaagsan hawshii oo dekada iyo maxay tahay arrintii DPL ka dhaxaysay ay si fiican inoogu soo gabagaboodo si fiican hawshii la isku afkartay shaqaaluna waxa weeyaan meel haddii ay dekadu ahayd ma garanaysaa meel in badan soo shaqaynaysay shirkad cusub oo kamid cusub yimi hadda jeer way iska dhacdaa adduunyada dhan meel walba ka dhacdaa orientation ba runtii ka dhinnaa taana runtii khaladka waanu qaadanay inaanu lahayn marka waxa weeyaan orientationkii runtii marka si fiican ba madaxweynaha iyo nimankii muhiimka u ahaa runtii halkan isugu yimaadeen arrintaana si fiican baan nimankaas ula afgaranay wixii dhamaystirkeeda u baahana dhamaystirkana waan dhamaystirana wax xumaanaya insha Allah bidilaahi kariim ma jiraan runtii aad iyo aadna waan ma garanaysaa cid kastoo ka soo shaqaysay hawshaana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay dadweynaha iyo shacabka dhammaantiiba shaqadu waa inoo muhiim hawshana waxa weeyaan meeshana waxa weeyaan waa dhuuntii iyo halkii ummadda wax lagu kala waday in hawsha shaqadii noo socoto hawsha halkeedii naga socoto shaqada aan la joojin wixii cabashaana mar walba guddi baa loo sameeyay ciddaas hawsha ayaa lagala xiriirayaa qof lagu maamulayo ay u qaadan dadkuna ma garanaysaa shaqaalu ay u qaadan in ajaanib ama cid kala maamulayso waa muwaadiniin xaq bay u leeyihiin iyaga xuquuqdii muwaadinimay leeyihiin laakiin waxa weeyaan shirkaddan iyo kambanigani dawladda ayaa la gashay hawshu si fiican bay u soconayaan waxbay noo soo kordhinayaan waxaanaynu wixii cabashaa laga muujiyana runtii waynu ka wada hadli doonaa inagoo isu wada dhown anaguna runtii goobjoog baanu ka ahaan doonaa insha Allah